الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. marka ugu horeyso waa u mahad celinayaa dhammaan madaxda iyo saraakiisha iyo odayaasha halkan ku shirsan oo aan caawa halkan ilaa ay galabta ku lafaguraynay kaalinta kaga aadan dib u xoreynta iyo la dagaalanka argagixisada ee dalka ka socda. waa bogaadinaynaa marka ugu horeyso ka dowlad ahaan anoo matalayo xukuumaddii, ka xubin golo shacab ahaan oo matalayo dadka deegaanka kasoo jeeda hirshabeelle ama hiiraan, dhammaan tilaabooyinkii argagixisada looga sifeeyey gobolka hiiraan gaar ahaan bari, saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo mujaahidiinta kale ee macumisleeda. waxaan leeyahay inta dhimatayna waa shuhado, inta dhaawacna ilaahay ha bogsiiyo. dadaalka aada bilowdeenna gabagabadiisa waxa weeyaan waa bilowdeen, annagana waa soo afjari doona hadduu ilaah yiraahdo. ka golo shacab ahaan markaan xubin ka mid a ahay, waxaan kasoo jeedaa dowlad goboleedka la yihahdo hirshabeelle. markaan hoos usii daadegana waxaan kasoo jeedaa gobolka hiiraan. hoos markii loo sii daadegana waxaan kasoo jeedaa degmada beledweyne. inta uu wasiirka sheegay gambarlaawo ilaa ijiiqleyna tuulooyinkeygii ayaa tahay. sidaa darteeda soomaalida sideedaba waxbay qarqarisaa, laakiin ebedkeena waxba ma qarin, diyaarna uma nihi inaan qarino, waayo waxaan rabnaa xaqaa'iqda inaan waajahno. meeshaan waxaa la yihahdaa beesha afar makane. taariikhda la yidhaahdo lama galaay, cid kasta waxaan rabnaa inay akriso sababta ay ku baxday. tuulo waxaa jirto la yidhaahdo hiiraan, aramo cid walba waxaa waaye inay akriso, iyo guud ahaan gobolka taariikhdiisa. sidaa darteeda marti kama noqon doonto la dagaalanka kooxahan argagixisada ah ee caadeystay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah, in waxa weeyaan gabaad ay ku noqdaan deegaanada ay beeshaan degto. waxaa jirta dad siyaasiyiin ah laga yaabo inay durayaan howlgalladan lagu soo afjarayo kooxahan argagixisada ee madaxweynaha uu ku dhawaaqay. annagana aan ku shaqeynayno xukuumad ahaan tawjiihaadka iyo instructionka iyo awaamirta madaxweynaha uu bixiyey iyo maxaa uu bixiyey, annagoo golihii fulinta waxa waaye mataleyna. waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan siyaasiyiinta qaarkooda beelo ayaa la hubeynayaa. taasi laftirkeeda ayaa waxay tahay fikir shabaab oo ummadda lagu dhex baahinayo, isla markaana looga hortagayo horu socodkeeda, isla markaadana lagu carqaladeynayo in shabaab dalkan looga sifeeyo. beelaha is-abaabulay ee hiiraan ka bilowday walaalaheena farsamo talis xawaadle, waxaa weeyaan shacabki iyagaa kacay, hubkana iyagaa wata. dowladda hub ay siisay horta ma jiro, wasaaraddan annagaa joogo, laakiin shacabkaasi way hubeysan yihiin. iyagoo hubeysan ayay maanta shabaabkii hubka ka daadsanayaan. dowladdana waxa waa ciidankeedii xoogga dalka ayaa ka garab dagaalamayo. shalay waxaad ku faraxsaneedeen ciidan xoogga dalka ah ama ciidamada soomaaliya oo ka garab dagaalamaysay amisom. maanta inaad hadal ka keentaan ciidan soomaali ah oo maanta waxa weeye dhiiggiisa la banaystay, cirdigiisa la banaystay, sharaftiisa la banaystay, oo maanta u istaagay inay naftooda iyo diintooda iyo cirdigooda difaacaan, inaad hadal gelisaan, horta waxaa weeyaan waa ayaan daro. laakiin waktigii hadalka uu iska soo dhammaaday. dagaalkaas uu u bilowday ayuu u soconayaa ilaa kan ugu dambeeyo waxa weeyaan laga sifeynayo. sababtoo ah hadduu yahay siyaasi ama mushkilad siyaasadeed haddayna haysato waa xalin karnaa. mushkiladii ugu darneed ee siyaasadeed dalkan soo marta waxay ahayd electionka xalana laga gaaray, oo siyaasadda sideedaba xal bay leedahay meel loo raaco.
qabaa'ilu hadday isdagaalaanna xal bay leedahay oo waxaa odayaal iyo nabadoon iyo dhaqana waxaa loo diraa. yaa ii damaanad qaadi karo shabaab oo maanta ka keeni karo war ummadan ha laynin, oo hooyada ha beegsanin, oo caruurta ha beegsanin, oo diinta ha sumcad xumeynin, oo qofka masaajidka ku dukanayo ha dilina. qofka maanta ka keeni karo ka daaya dhihi kara xaggee jira. waxaan la hadlayaa kuwa leh beel baa la hubeenaya iyo beelaa berinta xoogeysanaysa iyo beela la dilaacayo kuwa leh. horta ogaada shabaab xalkiisa waxa waaye waa xabad. xal kale oo maanta uu leeyahay ma lahan. annagan hadda halkaan fadhino mid uusan wax ka dilin ma laha, oo dadkeenii ka mid ah ciduusan ka dilin ma laha. saraakiishii annaga aan xakumaynay ciduusan ka dilin ma laha. ciduusan naafeynin oo famil ahaan uusan u naafeynin oo soomaaliya waxa waye ma jirto. sidaa darteeda xal kale ay leeyihiin ma lahan. midka shisheeyaha ina waxaan leenahay fursad ugu sokaysa aada haysato waxaa weeyaan intaanan kusoo gaarin. haddaan kusoo gaarno waxa weeyaan hadaf ayaad noo tahay. waxaa weeyaan dalkan xataa qabasho ma lihin. hooyooyinka soomaaliyeed ee caruurtooda maanta nimankaas maskaxda ay ka xadeen, messajka aan u direen waxay tahay nimankii waaweynaa oo iyaga ka mid ahaa ayaa maanta soo kala dhuumanayo. caruurtiina waxaysan ogeyn ha ku halaagina. caruurtiina waca, fursad bay haystaan. hadeertaan waxa waa isaga soo baxeen, ha isoo dhiibeen dowladda ayadaa xanaanaynayso. oo kuwa haddaba isbitaalka xooga dalka lagu daaweynayo oo shabaaba ayaa hadeertaanba ay haynaa dhaawacyo lagu soo qabtay, iyo qaar kaloo badan oo waxaa waa isoo dhiibo maalmahan isoo dhiibayo. fursadaad haysatiin, caruurtiina ka soo saarta. yaanan lagu laynin diyaaradaha beegsanaya kooxaas argagixisada. yaanan lagu laynin xabadda mujaahidiinta xooga dalka iyo waxaa weeyaan mujaahidiinta deegaanka intaysan beegsanin ka hor. caruurtiina fursad ayay haystaan. ka soo saara, u sheega dadkooda ha kusoo noqdeen, noloshooda caadiga waxa way ha kusoo noqdeen. sidaa darteeda marka nimanka la yidhaahdo shabaab diin iyo iyaga waa kaaf iyo kala dheeri. mid kastoo la qabto oo carruurtaasi ka mid ah waxay kaga sheekeeyaan in xuurulceyn 72 uu helayo. diintii oo dhan marka waxay kusoo koobeen fikirkaas ee carruurtii waxaa weeyaan ay ku xadeen oo iskoobkaas ayay kusoo koobeen. markaasuu wuxuu dilayaa ilmihii yaryaraa. markaasuu wuxuu dilayaa hooyooyinkii. bal maanta maxay geysteen dad ganacsato ah oo masaakiina gabaaridooda inay gubaan, ayagana gubaan. maxay galabsadeen? maxay shabaabka waxaa waaya ka haleeyeen? maxay diinta u dhimeen ee iyaga waxaa waaya sheeganayaan? ma cid bay ku duuleen? ma shabaab bay waxaa weeyaan dhibaato kale u geysteen? maxay u laynayaan muxuu ahaa odayaasha dhaqanka ah ee maanta magaalada muqdisho iyo gobolada dalka joogo? wax reason ay haayaan haba jirtay waxaa weeyaan ma lahan. mid kastoo ayaga ka mid ahna waxa uu ku fadhiyo iyo waxa uu ku fikiraayana waa haynaa. sababtoo ah ma beegsadaan qofka aqoon-yahanka ah ee dhalinyarada ah ee magaalada joogo ma beegsadaan, ama magaalooyinka waaweyn ee dalka. waxay beegsadaan qofka aan waxba garanaynin oo aqoonta aan lahayn oo waxaa weye jaahilka ah ee ilmaha yaryar waxaa ayay beegsadaan. caruurta ayay qafaashaan. hooyooyinkiina dhale ayay ku sheegaan in caruurtoodii waxaa weeye xaaraan ay ku dhaleen. ayaga xaggay ka yimaadeen asalkooda? waxay fahmi waayeen xataa oo cali dheere uu fahmi waaye. kuwa kale wuxuu kaga damir xun yahay, kuwa kale waaba aamusan yihin isaga, laakiin kuwa kale wuxuu kaga sii liitaa dayuusnimo. taasoo ah maanta nin shisheeye ah oo maanta leh comorosaan ka imid, ama tanzaniaan ka imid, ama kenyaan ka imid, ama masaraan ka imid, ama waxaan ka imid muxuu ahaa dalalka yurubtaan ka imid, oo walaalkaadan kula dilaa oo gaal ah uu leeyahay, ayuu waxa way usoo garab istaago uu soo hor socday. halkuu dhihi lahaa war adiga gaalka rasmigaba adigu kuu jooga haddayba gaalnimo jirto xaggaasay joogaane adiga wax ka qabo kan ii daani hadduu dhihi laha waxbay haleen. laakiin kuwii waxa waaye soo horkacay oo maalin kastaba shacabkiisa waxa waaye u laynayaan. qaraxii halgahay saamahaad aragteen, qaraxii waxaa aragteen zobaad aragteen, kii kale ka dhacay muxuu ahaa shaamo balaas aragteen oo dad elida lagu beegsaday. waxaad aragteen qaraxii liida ka dhacay hooyo iyo caruurteedii waxaa weeyaan waxaa waaye la beegsada oo ilmo yar yar ahaa. waxaasoo dhan caruur yar yaroo basaswa oo muxuu ahaa caruur iyo arday waxaa weeyaan xambaarsanay laynayna aad aragteen. xaggee diinta kaga qoran tahay? nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal uu diraayo asxaabtiisa iyo khulafaa raashidiintaba dardaaranka ay siin jireen waxay tahay laa taqtuluu shaykhan kabiir, yacni oday da ah ha dilina, wala mra'atan haweeneyna ha dilina, caruur yarna ha dilina, geedaha ha jarina, oo guryahan ha gubina, oo macaabidda ay leeyihiin gaaladana ha gubina. iyaga maxay sameynayaan? waxa ugu horeeya waxaa weya inay islaam dagaal leeyihiin magaca islaamka ay xumeynayaan.
masaajidada ilaahay ay dadka ku dilaan maanta iyagaa dadka kareebay salaadii qof kastaba inuu yidhahdo masaajidka ma tukan karo dadaa waxaa lagu dilaya xaggee diinta kasoo gashay xaggee nebiga ku amray in qof masjid kasoo baxay oo amaanada ilaahay ku jiro waxa weyan in lagu dhex dilo qaarkooda sida ka dhacday waxa weya boosaaso iyo magaalada muqdisho xaggee ka dhacday qof muslim ah oo amaanada ilaahay kasoo baxay oo soo tugtay oo salaad cisho ama salaad maqrib soo tugtay oo banaanka loo istaagay la dila xaggee diinta waxaa waaya kaga qoranta xaggee lagu yiri ilmo yar waxaa weeyaan jalaa lagu tagaayo ilaaha lagu dhawaanayo diinta lagu xaggee diintaas waxaa weeyaan ka jirtaa marka waxaad ogaanaysin fikirka ay wadaan ma aha fikir islaam ah ma aha waa haynaa inay waxaa weeyaan beero darooga waxaa weeyaan ee beereen oo hadeertaba xogteeda waxaa waaye la haayo lana arkay xaggee diinta kaga qoran tahay dadkii waxay u diideen ummadii waxay badeen intay noolaan lahaayeen beerahooda falan lahaayeen xoolahooda dhaqan lahaayeen inay dalkooda dhexdiisa waxaa weeyaan qaxooti iyo qax waxaa waaye ku joogaan kuwii meesha joogana xataa la keri waaye in abaarihii ku dhacay waxaa weeyaan la gaarsiin waaye cuntadii iyo wixii ay u baahnaan in la gaarsiin waaye ayay gaarsiiyeen diintay haystaan kuwaas iyaga marka waxaad ogaanaysaan soomaali maxamed boqolka qatar aan maanta haysano waxaa weeyaan waa wada shabaab hadday kow tahay waa shabaab hadday laba tahay waa shabaab hadday saddex tahay waa shabaab marka cid kasta sida golaha wasiirada ay soo saareen isbuucii lasoo dhaafay cid kastoo shabaab maalgelisa cid kastoo shabaab guryo waxaa weeyaan ama hoysiisa cid kastoo shabaab xoogsiisa cid kastoo shabaab si kasta ay noqoto waxaa ula shaqaysa shabaabkuu ka daranya taargetna ayuu u yahay waxaa waye dowladda iyo shacabka soomaaliyeed hadeertaan waxay kaga duwan tahay waxaa waye weliba markii hore dowladda iyadaa dagaalamaysa iyadaa socotay laakiin maanta shacabka iyagaa waxaa weeyaan lidkii qaatay shacabka iyagaa go-aanka qaatay oo lagula dagaalami lahaa waxaa weya shabaab annaga keni naga dhintana waa mujaahid oo muxuu ahaa ku dhintay xaq ku dhintay jano ilaahay ayuuna galayaa sababtoo ah waxaa weeyaan faqutila duuna maali faqutila duuna cirdi faqutila duuna diini yacni diintiisa iyo cirdigiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa asoo difaacanaya ayaa la dilay qofkaas isaga ahana waxaa waye sida rasuulka alayh salatu salaam uu yiri januu galaya qofkeeni naga dhaawacmana dowladda waxaa waye iyadaa waxaa weeyaan aad muxuu ahaa daaweysanaysa ha ogaadeen marka geed qarin doono ma lahan guri ay ku gamban doonaana ma lahan waqtigoodina waxaa waaye wuu soo dhammaaday waa gabagabo fursad ayay haystaan oo ah inay dowladda isku soo dhiibaan inta caruurta ee maskaxda laga xaday iyo inta kaleba guud ahaan marka siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaan la yidhaahdo shabaab waa qatar wadareed annaga dhan taarget noo wada ah oo aan na kala soo celin oo shacabkeena aan kala soo celin annagana aan na kala soo celin hadalka badan iyo fikradaha qaldan ee waxaa waaye mucaaradnimada aan loo meeldayn inta meel layska dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ha lagu garabsiiyo siduu kaga takhalusi lahaa iyo dadaalada uu wado iyo ka go-naanshaha ee ka go-an tahay uu ku gaaray in nimankan ummadda laga dulqaado uu ku gaaray waxa weye ha lagu garabsiiyo ha lagu garab istaago fikirkaada mucaaradnimo oo siyaasadeed waa haysan kartaa laakiin fikirkan shabaab dhexdhexaad lagama noqon karo either my way or the highway ama iyagaad against us or ayagaad la jirtaa ama waxa weye annagaa nala jirtaa wax la yidhaahdo qof dad dilaayo oo magaca diin ku dilaayo diinta sumcad xumeynaayo waxa weeyaan dhexdhexaad lagama noqon karo waxaa la leeyahayna muxuu ahaa maanta waxaa la difaacayn waxaa weye nabi maxamed calayhi salatu wasalaam la difaacayna waa inay u niyeystaan dadka oo macawisleyda ah muxuu ahaa mujaahidiinta macawisleyda ah iyo ciidanka xooga dalka ah iyo cid kasta oo shacabka ka mid ah ee dagaalamaysa ee maanta lasoo taagan inay iska dhiciyaan shabaab waa inay ogaadaan deegaan iyo dowlad midnama difaacayna waxay difaacaan diinta islaamka oo ah wax ayaga ay ku nool yihiin oo ruuxdooda waxay difaacaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay kuwan yayda ah ka leeyihiin war nabiga saan ma samayn jirin nabiga hadalkaas ma dhihi jirin nabiga wax ma layn jirin nabiga wax ma gubi jirin nabiga wuxuu ahaa wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin uu ahaa inay yidhahdaan inay u sheegaan bilmu'miniina ra-uuf raxiim nabiga inuu ahaa mid wax u tura inay u sheegaan dagaalkan waxaa lagu dhin jiray waxaa waaye dagaal diinta lagu difaacayo lagana difaacayo koox maafi ah magaca diintana waxaa waaye sumcad xumeynayso dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta siyaasadeed waa inay waxaa weeyaan la socdaan xukuumadda garab ayay u tahay cid kastaba amarka madaxweynaha uu bixiyeyna waa kaas cid kastoo waxaa weeyaan oo muxuu ahaa nimankaas waxaa weeye garab u ah annaga waxaa weeyaan ninkaa uu naga dhintay iyagaas ayuu waxaa waaye nala mid yahay waxaan mar kale u mahad celinayaa in go-aanka inuu idinka yimaado maanta oo aad waxaa weeyaan la imaataan inaad u caddaysaan dowladda soomaaliyeed inaad u caddaysaan shacabweynaha soomaaliyeed meel walba uu joogo inaad diyaar u tihiin
inaad nimankaasi ka xureysaan deegaanada dhammaan ay ku wada sugan yihiin ay gobolka hiiraan kaga sugan yihiin inaad waxa weeyaan ka xureysaan inaad diyaar u tihiin dowladda waxa weeyaan way idinku ogaanaysaa wayna idin garab siinaysaa sidii waxa weeyaan goobahaas looga xureeri lahaa mid kastoo idinka mid ahna waxa weeyaan dagaalkaas wax kusoo noqdana dowladda garab waxa weeye ayay la tahay qof kastoo soomaaliyeed oo maanta shabaab la dagaalamaya dowladda garab ayay u tahay dhammaan gobolada dalka shacabka ku suganna waxaan leenahay kor iyo hoos waa dhimanaysaa sababtoo ah ilaahay marka horeba kaalama tashanin shabaab inuu adiga ilaahay ku abuuro haddana kaalama tashanaayo hadduu ilaahay ku dilaayo shabaab kaalama tashanaayo sidaa aawadeeda sariir ha ku dhimanin adoo dulaysan goobta dagaalka iyo furimaha dagaalka ku dhimo adoo sharaf iyo cizi madaxaada kor uu yahay maanta halkaanaan ku shirnay shirkeena labaad waxaa weeyaan wuxuu noqon doonaa meesha la yidhaahdo jere ilaa iyo jiikley ayuu noqon doonaa hadduu ilaahay iyo gambarlaaw ayuu noqon doonaa ma noqon doono wax ku eg halkan kani wuxuu ahaa inaan iclaamino ay ciddana iclaamiso inay diyaar u yihiin kan kale soo socdo annagoo dhan oo waxaa waan hubkeena wadana rasaasteena wadana muxuu ahaa wadana isheeg muxuu aha tuutaheena wadana ayaan luuq jeelow ka bilaabayna ilaa meesha ugu dambeysana waxaa weeyaan insha allahu tacaala inaad soo celisaan magacii diintan islaamka ahay nimankaas xumeeyeen ay sumcad dilin inaad soo celisaan isku una waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu